أنا جلبهار جليل من الإيغور. اعتقلت من السلطات الصينية دون ذنب، وبعد الاعتقال بدأوا إعطاء كل واحدة من النساء حبتين من الدواء في موعد محدد، وأجبرونا على تناولها أمام أعينهم، وفحصوا أفواهنا ليتأكدوا أننا ابتلعناها. كانوا يحقنوننا بإبرة كل 10 أيام. لقد كانت الأدوية والإبر من أجل قطع الدورة الشهرية وإفقادنا الذاكرة. لم نكن نستطيع الشعور بالجوع حتى إذا كنا جائعين. كل 10 أيام كانت تأتي 10 شرطيات و3 جنديات بأسلحتهن. كانت الجنديات يقفن أمام الباب، بينما تقوم الشرطيات بإجبارنا على نزع ملابسنا كاملة وعلى الجلوس والقيام 3 مرات ونحن عاريات تماماً. لا أعلم عن ماذا كنا يبحثن، فقط يحاولن طعن شرفنا. لقد كان الحمام مصنوعاً من الزجاج وبابه لا يغلق. qowmiyadda Iigoorku waa qowmiyad ka mid ah qowmiyadaha Turkida la isku yiraahdo ee dega bariga, bartamaha, waqooyiga iyo galbeedka Aasiya. Qowmiyadani ayaa degta gobolka Shinbin ee dhaca waqooyiga galbeedka Shiinaha, waana gobolka ugu weyn guud ahaan gobolada Shiinaha. Gobolkaas oo iyagu yaqaanaan Turkistaanta Bari, East Turkistan. Qowmiyadani tiri ahaan waa ilaa 12 milyan oo qof, waa muslimiin. 12 milyan oo ka mid ah ayaa ku nool Turkistaanta Bari, halka 1 milyan ee soo hartay ay ku nool yihiin meel ka baxsan deegaankooda. Waxay ka mid yihiin ilaa 55 qowmiyadood oo laga tiro badan yahay ee ku nool dalkaasi Shiinaha. Muslimiinta Iigoorka ayaa la nool cadaadis, tacdiyo, dhibaatayn iyo sirsifeen ka dhan ah dadkooda iyo diintooda, sababtoo ah waa qowmiyadda qura ee muslimiin ee ku nool ama degan dalkaas ee deegaan dhammaystiran ku leh. Gobolkoodu waa mid qani ku ah khayraadka shidaalku ugu horreeyo. Waa gobol aad u weyn oo muhiim u ah dowladda Shiinaha. Dowladda Shiinaha ayaa u aragta bulshadan kuwa diintoodu caqabad ku tahay nidaamka Shiinaha. Sidaa awgeed waxay dhaqaale badan ku bixisaa sidii bulshadaasi dhaqankooda, diintooda iyo taariikhdooda loo tirtiri lahaa. Waxaa gobolkooda la soo dejiyay bulshada Hanka oo ah bulshada ugu tirada badan dalka Shiinaha. In ka badan 1 milyan oo ka mid ah muslimiinta Iigoorka ayaa lagu guriyay xariyo xabsi ah oo loogu talagalay in lagu bedelo dhaqankooda iyo diintooda. Dowladda Shiinaha si ka baxsan bani'aadanimada ayay ula dhaqantaa muslimiinta ku nool dalkaasi Shiinaha ee Iigoorka. Deegaankooda qani ah dhaqaale ahaan ayay ka faramaroojisay, iyadoo caqabad looga dhigay diintooda iyo isirkooda. Qaybo ka mid ah bulshada muslimiinta ayaa u soo qaxda wadamada galbeedka iyo Turkiga, kuwaas oo magangelisiya badnaa. Ma jiro dal muslim oo ku dhiiran kara inuu si cad ugu doodo xuquuqda muslimiinta Iigoorka, baqdin laga qabo saameynta Shiinaha uu ku leeyahay dunida. Warbaahinta galbeedka ayaa u bandhigta caalamka dhibaatada lagu hayo muslimiinta Iigoorka, iyagoo u adeegsanaya inay ka faa'iideystaan danaha siyaasadeed ee kala dhexeeya Shiinaha wadamadooda. Ma muuqato rajo laga qabo in Shiinaha bulshadaasi uu xaqeeda siiyo ama uu madax bannaani siiyo. Iska badda arrinkaas qofkii ka hadla ee dunida u bandhiga dhibka haysta muslimiinta Iigoorka ayaa la kulma cadaadis kaga yimaada dowladda Shiinaha. Waxaa ka mid ah dadka ka hadlay dhibaatooyinka lagu hayo muslimiinta Iigoorka, ciyaaryahanka u ciyaara kooxda Arsenal ee Mas'uud Ozil. Waxa uu la kulmay cadaadis kaga yimid shacabka Shiinaha iyo dowladooda. Waxay ka mamnuuceen inuu cagtiisa soo dhigo dalka Shiinaha. Waxaa guud ahaan la joojiyay daawashada kooxda Arsenal, waxaana la gubay funaanad walba oo magaciisa ku qornaa. Marka la eego siday wax ku wado dowladda Shiinaha 50 sano ee soo socota, bulshada Iigoorka gebi ahaanba dhulkooda ayaa la wareegi doonaa. Maanta gobolkooda waxaa ku nool 10 milyan oo Han ah oo ka mid ah qowmiyadda ugu tirada badan dalka Shiinaha. Mareykanka iyo dalalka cadaadiska ku saari kara Shiinaha arrinkan ayaa indhaha ka laabtay. Marka qura ay ka hadlaan waa mar ay Shiinaha dana siyaasadeed ka leeyihiin, halka wa muslimiinta aysanba ka hadlin. Warbaahinada Turkiga iyo Qatar ayaa badnaa soo bandhiga arrimaha la xiriira qowmiyadani. Qaar ka mid ah qowmiyadda Iigoorka ee ku nool dalka dibaddiisa ayaa banaanbaxyo sameeya mararka qaar, halka kuwa jooga dhulkoodii banaanbax daayay xitaa aadida masaajidka ay dhibaato ku tahay. Waxaan Allah ugu baryaynaa inuu nasrigiisa siiyo, dulmigana ka dulqaado. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.